الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا qodobada wararka janalkeena Daily TV ugu door karoon waxaana kamid noqonaya madaxweynaha Somaliland oo tababar u furay ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku dagaalamay magaalada caasimadda ee Muqdisho tababarka badqabka suxufiyiinta oo Jowhar ka furmay Almas Elman oo lagu dilay xirada xalana ee magaalada Muqdisho amnigeeda aad loo sugaado madaxweyne Farmaajo oo shir isugu yeeray xisbiyada Soomaaliya ka jira madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya soo maray sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlaya kulankii ay la qaateen madaxweyne Farmaajo maxaa ka soo baxay kulanka dhexmaray Farmaajo iyo madaxdii hore ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland oo gaaray deegaano ay ka baxeen xarakada Al-Shabaab xildhibaan Zakariya oo wasaaradda maaliyadda sheegay inay joojisay inay fursado shaqo siiso dadka Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Daily TV ugu door corona intaan ugu galin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka dalbanayaa inaad ugu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambalelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haddana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Somaliland ayaa tababar u furay ciidamo ka tirsan Somaliland madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa deegaanka Dararweyne ee duleedka magaalada Hargeysa ka daafuray mashruuc lagu tababarayo dufcadii ugu horeysay ee loo carbinayo inay noqdaan saraakiil ciidan oo wiilal iyo gabdho jaamiciyiin ah ay ka kooban yihiin munaasabada lagu furayo tababarkan oo ka dhacday kuliyadda tababarka saraakiisha ee Cabdilaahi Askar ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada booliiska militariga badda iyo asluubta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaana dhalinyarada ay yihiin ardaydii dhawaan ka baxday barnaamijka shaqo qaran taliyaha ciidamada militariga Somaliland Sareeyagaas Nuur Ismaaciil Taani ayaa ugu horeyn madaxweynaha uga mahadceliyay fikirka uu curintiisa leeyahay ee lagu carbiyay dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran ee qaybo kamid ah haatan ku jiraan saraakiisha madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhalinyarada cusub ee loo carbinayo saraakiisha u jeediyay khudbad dheer oo la xiriirta howlaha sugaya amniga muhiimadda iyo karaamada ku jirta inuu qofka ka mid noqdo ciidamada kala duwan ee Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu eedeeyay in saraakiisha cusub ee loo carbinayo saraakiishu ay haystaan jidkii qaranka lagu ilaalin lahaa waxaana isaga oo arrimahaasi ka hadlaya ayuu yiri waxaan bilaabaysaan asxaabay jidka ah aniga nafteydu waa inay ilaalisaa qaranka iyo danihiisa oo ay qatar walba u hareertaa ama u bareertaa qof aan taas yeelina garaadoona ma qaato askarina ma noqdo oo waa isyeel ayuu yiri madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku dagaalamay magaalada Muqdisho sida ay Daily TV u xaqiijiyeen goobjoogayaal ka tirsan eriyada lagu dagaalamay dadka jooga ayaa waxa ay sheegeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya inay ku dagaalameen ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel aan sida uga fogeen xarunta taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ragaasi ama rasaas culus ayaa ka socotay agagaarka taliska ciidanka asluubta waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamo ka tirsan dawladda ay halkaasi ku dagaalameen goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalku uu dhex maray ciidamo ilaalo ka hayay xarunta taliska asluubta iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dawladda Soomaaliya isu socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ee ex-control ayaa hakad galay walow markii dambe ay saraakiil halkaasi gaareen arrintiina la xaliyay tababarka badqabka suxufiyiinta iyo magaalada Jowhar looga furay wariyaal ka tirsan wariyaasha Jowhar waxaa magaalada Jowhar ka furmay tababar uu soo qabanqaabiyay dalada Soma oo gacan ka helaysa hay'adda IMS
Furitaanka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay madax ka tirsan Hirshabelle sida Gudoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhinaca ammaanka Abshir Cadow Hiraabe, duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey Cali, wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta Maxamed Axmed Faarax Colombo, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Hirshabelle Maxamed Xasan Kulmiye. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galaya 20 suxufiyiin oo isugu jira tiftiirayaal iyo wartabiyaal. Xogayaha Zooma Maxamed Cabdiwahaab oo hadal ka jeediyay furitaanka tababarka ayaa sheegay in tababarka wariyaasha ka qayb galaya ay ka kala yimaadeen Beledweyne, Balcad iyo Jowhar. Wuxuu u mahadceliyay IMS Voucher oo ka caawisay Zooma in ay tababaraan ama tababarkan u qabtaan madaxda Hirshabelle ee ka qayb galay furitaanka tababarka sida wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta, gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka gobolka, duqa magaalada Jowhar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta. Xogayaha ayaa sheegay in tababarka ay muhiimad weyn u leedahay wariyaasha Hirshabelle maadaama uu ku saabsan yahay badqabka suxufiyiinta oo muhiim ah marka Soomaaliya wariyaasha ka shaqeynayaan loo fiiriyo gaar ahaan maamul goboleedyada oo aan badanaa tababar helin. Isku xiraha IMS Voucher Abuukar Albetri ayaa khudbad ka jeediyay kuna faahfaahiyay kulanka sida uu ugu faraxsan yahay isaga oo matalaya IMS Voucher in uu tababarkan furitaankiisa ka qayb galo. Wuxuuna sharaxay muhiimadda tababarkan ay iska kaashadeen IMS Voucher iyo Zooma uu u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan xirfadleyda. Agaasimaha Radio Jowhar Maxamed Abuukar Caseer oo ka mid ah agaasimayaashii warbaahinta ee ka qayb galay furitaanka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tababarkan uuna yahay midkii ugu horeeyay ee noocan oo kale ah ee Jowhar lagu qabto. Almas Elman ayaa lagu dhex dilay xerada Xalane. Waxaa goordhow lagu dilay gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Almas Elman Axmed oo mar soo noqotay xogayaha koowaad safaaradda Soomaaliya ee Kenya, hadda waxa ay ka tirsaneyd hay'adda Elman Base oo uu aasaasay aabaheed oo caan ku ah ka shaqeynta nabadda ee Elman Axmed, kaas oo isna Muqdisho lagu dilay. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka Almas Elman, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gaari ay wadatay xabad lagu riday ay ku dhacday kadibna dhaawac ka soo gaaray ay ugu geeriyootay isbitaal ku yaala gudaha xerada Xalane. Almas Elman ayaa waxa ay walaalo ahaayeen gabadha Soomaaliyeed ee u tartamaysa biladda nabadda ee Ilwad Elman oo si weyn looga yaqaano caalamka, waxaana weli la ogeyn cidda ka dambaysa dilkaasi. Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa ah goob ammaankeeda aad u adag yahay isla markaana ay ku yaalaan safaarado sidoo kalena ay degan yihiin ajaanib fara badan. Madaxweyne Farmaajo ayaa isugu yeeray xisbiyada Soomaaliya ka jira. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir degdeg ah isugu yeeray xisbiyada Soomaaliya ka jira ee ay diiwaangeliyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Xubno ka mid ah xisbiyada ayaa Daynile TV u sheegay in agaasimaha guud ee madaxtooyada uu ku wargeliyay casuumaadda madaxweyne Farmaajo. Kulanka madaxweyne Farmaajo ee xisbiyada ayaa dhici doona maanta, iyadoona ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo waxyaabaha looga wada hadli doono, inkastoo inta badan la leeyahay waxa ay ku qatumaan arrimaha doorashada maadaama xisbiyadu ay u diyaar garoobayaan ka qaybgalka doorashooyinka xisbiyada ee la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoonto. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya kulankii ay la qaateen madaxweyne Farmaajo. Waxaa soo dhammaaday kulankii u dhexeeyay labadii madaxweyne ee hore ahna madaxda madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ku dhex maray xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Labada madaxweyne ayaa hadda kulan la leh qaar ka mid ah xisbiyada ka jira Soomaaliya ama qaar ka mid ah xisbiyada madasha aan iraade ay ka kooban yihiin, waxaana lagu wadaa in goordhow ay la hadlaan warbaahinta. Maxaa ka soo baxay kulanka dhex maray Farmaajo iyo madaxdii hore la hadalkii warbaahinta kadib? Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay
kulan ay magaalada Muqdisho kula yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ay isla garteen madaxweyne Farmaajo in dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda aan loo sameynin wax muddo kordhin ah, isla markaana doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. Waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore ay isla qireen in doorashada lagu qabto waqtigii loogu talagalay, ayna si wadajir ah talo ugu yeeshaan maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya. Arrimaha ammaanka ayuu sheegay in madaxdii hore kuwa maanta ay isla garteen in aan la siyaasadeynin ciidanka dowladda, isla markaana aysan taageerin siyaasi gaar ah. Gobolka Banaadir ayuu xusay Xasan Sheekh Maxamuud in ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo sidii loogu heli lahaa maqaam. Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah madasha uu faahfaahiyey kulanka ayaa dhankiisa sheegay in qodobada la isku raacay ay ka mid yihiin: 1. in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka garaabay arrimihii ka dhashay safaradii Kismaayo iyo Beledweyne. 2. in doorashada dalka waqtigeeda ku dhacdo, lagana heshiiyo qaabka iyo nooca doorashada u dhaceyso 2020 ilaa 2021. 3. in la ilaaliyo xurriyadda iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed. 4. in la ilaaliyo dastuurka iyo sareynta sharciga. 5. in aanan arrimaha amniga la siyaasadeyn, meelna looga soo wada jeesto dagaalka lagula jiro Al-shabaab, in ciidamada amniga ka shaqeeya sidoo kalena ay ku dhex milmin siyaasadda. Ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland ayaa gaaray deegaan ay Al-shabaab ka baxeen. Deegaanada dhaca galbeedka gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan Kamachuron iyo Buulaxaaji, waxaa ka dhacay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka oo ay sameeyeen ciidanka dowladda Soomaaliya. Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka, Al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanadaasi markii ay soo gaareen ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Ciidanka Jubbaland waxa ay sheegeen in ay fariisimo ay ku sameysteen deegaanada ay ka baxeen Al-shabaab, isla markaana hadda ay wadaan howlgallo. Ciidanka maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka bilaabay deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca xarakada Al-shabaab oo ku saabsan deegaanada ay sheegeen ciidamada dowladda saraakiishooda in ay isaga baxeen Al-shabaab. Xildhibaan Zakariya ayaa wasaaradda maaliyadda ku eedeeyay in aysan fursad siinin dadka Soomaaliyeed. Xildhibaan Zakariya Xaaji Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ku eedeeyay wasaaradda maaliyadda xukuumadda in aysan ogoleen in muwaadiniinta Soomaaliyeed shaqooyin loo abuuro. Waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyadda 3 sano ee lasoo dhaafay ay iska diiday in shaqaalaha sida lacag la'aanta ah ugu shaqeeya wasaaradaha laga dhigo shaqaale rasmi ah, iskaba daaya in la qoro kuwa cusub. Wasaaradda ayuu xusay in ay sidoo kale hoos u dhigtay qorshihii la doonayay in lagu xoojiyo in la helo lacag cusub oo dalka uu leeyahay. Zakariya ayaa tilmaamay in dalka haddii uusan helin lacag shaqeysa in uusan madax bannaanayn. Wasaaradda maaliyadda waxa ay xoojisay in fursado shaqo la siiyo dad Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya wuxuu yidhi wasaaradda maaliyadda waxa ay joojisay in ay fursad shaqo siiso dadka Soomaaliyeed, ayuu yidhi Xildhibaan Zakariya. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsata dalkaasi xilli uu ku jiray howshiisa caadiga ah ee shaqo. Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Mahad Bedel, isaga oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn goobtii shaqada. Kooxdii burcadda ahayd ee dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana dad ku sugan Koonfur Afrika ay sheegeen in meydka muwaadinka Soomaaliyeed muddo kadib goobta laga qaaday. Dalka Koonfur Afrika ayaa sanadkan 2019 waxaa kusii kordhayay dilalka loo geysanayo Soomaalida ku ganacsata, waxaana bisha gudaheeda dalkaasi lagu dilay 3 muwaadin oo Soomaaliyeed. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen channelka Daynila TV aan intaan warkan warkiga ku kulmi doono. Nabadgelyo.